rabnaa inaan ka qayb qaadano aniguna waxaan rabaa inaan gato boonka kuwii doolar baan ku dhawaaqayaa inaan maal gashaday simboolig ah oo ah dadku inay xorriye yeeshaan waxa sharaf loo yahay inaan kasoo qayb galno xafladan ama munaasabadan ah sanadka cusub ee Itoobiya waxaan leenahay sanad wanaagsan dhammaantiin waan leenahay malkan Addis Ahmed aad baan u faraxsanahay sidoo kale inaan maaragtay qayb ka mid ah arrintan xiriirka Itoobiya iyo Soomaaliya ama xiriirka Itoobiya iyo Puntland waa xiriir qoto dheer oo muhiim ah oo wuxuu ku dhisan yahay saaxiibnimo iyo darisnimo iyo wada qabsi waxaan iska kaashanaa dhinacyo badan oo ay ka mid tahay ganacsiga amniga haddii la kooxeeyahay isdhexgalka bulshada waxbarashada aad iyo aad xiriir qoto dheer la weeyo Itoobiya markii aanu dhab naga burburay oo aan qaxnana waxay ahayd meeshii aan u qaxnay hadda waanu joognana waxa weeye dalalku ka mid yahay dalalka naga kaalmeeya la dagaalanka argagixisada ee caalamiskaad oo uga mahad celinayna midaasna waxaan kaloo bogaadinaynaa daamkan muhiimka ah ee Itoobiya ay dhistay ee Renaissance la yiraahdo oo isagana dhawaan runtii la daahfuri doono waa bogaadin doonaa waa arrin muujinaysa waxa ay Afrika qabsan karto dadku waxay qabsan karaan daam ay dadku dhisteen aan filayo wax weyn ka tiri doono dhaqaalaha iyo horumarka Itoobiya iyo Afrika guud ahaanba anagana ay koronto inay soo gaarto jaban ayaan rajaynaynaa in la bogaadiyana way tahay waxaan rabnaa inaan ka qayb qaadano aniguna waxaan rabaa inaan gato boonka kuwii doolar baan ku dhawaaqayaa inaan maal gashaday simboolig ah oo ah dadku inay xorriye yeeshaan oo mustaqbalka ah contribution ah dadku inay wax wada gashadaan ay tahay sidaa daraaddeed waxaan leeyahay garab wanaagsan